السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهور wanaagsan asxaabta khayr badan baa idin rashaynaya dhammaantiin idinkii reerhiin iyo caruurihiiniyaba dhammaantiinba magacayguna waxa weeye qofka aan garanaynin Faadimo Naasir Cali kusoo dhawo channelkayga mar labaad iyo mar saddexaad mawduuca maanta idiin sida waxa weeyaan bogsashada daalka dareenka ah marka mawduucaasaan maanta baranaynaa insha Allah topic fiican weeyaan hooyooyinka iyo muxuu haayay hablaha iyo cid waliba oo dareenta daalkaas noocaas ah ayaa ka faa'iideysan doona oo waxaan rajaynayaa inaad ii sheegay aad si fiican u daawataan fiidiyogan ood dhagaysataan ood naftiina iyo noloshiina aad ku dabaqdaan waayo waxyaabo badan weeyaan oo aanan aqoon markaan joognay wadankii aanan daryeelkaasi aanan siin jirin ama ahmiyad aan siin jirin oonan ka warqabinba marka waxaan baranaynaa insha Allah topicaas maanta mararka qaar waxaan dareennaa muxuu ahaa inagoonan isdareemayn yaa waxaan dareennaa daal gudaheena ku jira oon ahayn mid yacni cid waliba ay kaa arkayso oo adigu keligaa dareemaysid oo muxuu ahaay mar walbana aan ahayn oohina aan ahayn iyo qof yacni depression ku dhacay aanan ahayn uu ka duwan yahay daalkaasina wuxuu kugu soo baxaa markaad in badan aad socotid eed shaqaysid eed wax waliba xallisid eed iska dhigtid qof mashiin oo kale ah ayaad muxuu ahaayey daalkaas uu soo baxaa markuu qofku waliba muddo dheer uu shaqeeyo ama uu fikiro ama uu sheegay shaqo fara badan uu qabto jirkiisa iyo maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo oo cid waliba is yiraahdo raali geli oo is yiraahdo ii sheegay shaqadan kala qabo tan kala qabo kolba meel ku bood xagan kala ku bood oo iska dhigtid qof mashiin ah yaa id maskaxdaada daalisid jirkaagana daalisid id imaashana ilmihiina ku sugayo ama odagaaga ku sugayo gurigii ku sugayo wax walba ku sugayaan ood iska dhigtid qof mashiin ah yaa ood iska dhigtid qof wax waliba qaban kara keliga qaban kara oo cararaya habeen iyo maalinba waa wax adiga jirkaaga gudahaaga ku maqan oo laakiin isma dareemaysid adigu step by step aayar ayuu wuxuu noqonayaa marka dambe aamusnaan heer waxaad gaadhaysaa yacnad waxaan oo dhan baad istiraahday ka dhexbax oo waa daashay waa goor aad daashayba dee markaad isku sheegaysid naftaada aad is leedahay yacni energy badan baa kaa baxay energy badan baad lumisay xataa ma dareemaysid yacni waxaan oo dhan aad qabanaysid inay kaa nuugeen enerjigaaga laakiin waxaad is leedahay wax waliba qabo xaggan kala dabool xaggan kala dabool xaggan kala qabo laakiin maalin uun ayuu kugu soo baxayaa waa waxyaabaha iminka dadkeenu ay u cabaan enerjiga laga raadiyo cabno aniga kan baaba kamid qofka cabade oo energy baan ka doondoonaa oo isiinaya saan u qaban karo noloshayda maalinta aan u xajin karo oon u wadi karo yaa waxaan cabnaa welibana waa coffee inta ugu badan coffee baan cabnaa subaxii hadda coffeega iska dayno oo qofku dhiikari wax leeyahayna wuxuu ku bedelayaa wax kale uu de enerjiga soo siiyo oo soo kiciya laakiin run ahaanta markaan isku sheegno nafteenu mararka qaar waxay u baahantay break inay qaadato ay nasato ay ii sheegay naftani ay maalin ama 2 cisho ay nasato waxbaba qaban weydo ay fadhiisato ay u baahan tahay haddaba bogsashadaasi aan ka hadlayo maanta waa wax macquul ah ood samayn kartid qof walbana samayn karo oo muxuu ahaayey dee naftiisa daryeelaya ama iska warhaya waxaana lagaaga baahan yahay waa dhowr qodob oo dhowrkaa qodob inaad naftaada ku dabaqdid haddii ilaha idhaahdo oo insha Allah aan xabad idinku macnayn doono si fiicanna halayla dhagaysto koobaad wuxuu yiri aqoonso daalkaaga waa inaad daalkaaga aqoonsatid oo maxay si daacada aad naftaada ula hadashid mar walibana oo adigoo yacni naftaada run u sheegaya oonad iskhaayimaynin waa inaad tiraahdo waan daalay laakiin nasiimaan u baahanahay nasiimaad u baahan tahayna waxaad samaynaysaa muxuu haayay lagagama baahna inaad yacni aad bilo dhan fasax qaadatid ama aad maxayd weegag dhan aad maqnaatid waxaa lagaaga baahan yahay xitaa one day haddaad qaadatid oo off ah oo shaqada ka shaqaynaysa aad fasaxa ka qaadatid waa inaad samayn kartaa muxuu maalintaada qaadatay fasaxa maaha inaad guriga ka shaqaysid haddana aad ku mashquushid maxaa dharmayd kii kala qaba haddana halkiiba kasii bilaabaysaa fasaxa aad qaadatay waxba kuuma tarayo haddii aanad maxayd fasaxa aanad ugu talagelin u qorshaysanin in aad nasatid yaa waxba ha qaban naso fadhiiso xitaa waxba ha daawan just iska fadhiiso oo iska naso naftaada sii in yaro ku nasato maalinta xitaa hadaad seexatid 8 saacadood seexatid caruurtii iskuulka iska geysay 8 saacadood seexo soo kac wax yar iska cun iska jiifso
naftaada ha soo noqoto yaa haddaad dhegeysan karaysid inaad dhegeysatid xadiis inaad dhegeysatid waxyaabo yacni naftaada kor soo yaro qaadaya enerjigayga motivation ku siinaya fideoyo iska daawo ama dhegeyso adoo xitaa haddaanad rabinba indhahaaga inaad daalisid wallaahi run haddaan ka hadlo nafteenu waxay u baahan tahay nasiimo siiba hooyooyinka energy baa kaa baxay calcium baa kaa baxaysa ilmaad dhalaysaa hablahana maxay heeday dhalinyartaana enerjiga inay iska sii wada qaadaan intaay hablaha yihiin ama ay fikir isgeliyaan ama ay isgeliyaan maxay heeday rafaad nolol xuno ciriiriya waxa weeyaan in iyaga laftirkoogu ay kasii fikiraan ama ay tashadaan ama ay wax bartaan oo naftooda ay dee aqoonteeda kor u soo qaadaan ayaan kula talin lahaa ay sameeyaan maxay cilmi baadhis ama baadhitaan ay sameeyaan wax akhriyaan iminka adduunyadu horumar bay gaadhay internet xaafad walba waa u yaalaa mobile waa la haystaa inay wacigooda kor u soo qaadaan ay yacni ay bartaan intaanad aad reer gelin ama aanad hooyo noqon waxyaabaha aad u baahan tahay inaad fahantid ama aad baratid ama naftaada siad u nasin lahayd waxyaabaha enerjiga kaa nuugayo kale inaad ii sheega aad ka fogaatid ood xaqaaga garatid yaa de waa kaas marka waa inaad maalintaad fasaxa qaadatay xitaa inaad ka faa'iidaysatid ood si fiican u nasatid oon loo baahnayn yacni inaad naftaada aad ka dhigtid mashiinkaa duulaya habeeniya maaline wax walba qaban kara yaa hooyooyinow iyo dumarow inaad naftiina ka warhaysiin waa muhiim wax kasta oo kaasoo horbaxo ood yacni aad dareemaysid inuu enerjigaaga kaa nuugayana ha qaadanin waanad sii daysaa waayo naftani yacni inaad ilaahay caabudid mooyaane ood maxay hadee dhinaca ilaahaad noqotid mooyaane laakiin inaad wax kasta oo ciriiri ama culays kugu haya inaad qaadatid maaha shaqada ka shaqaynaysidna haddaad dareentid inay kugu culus tahay ama ay energy badan kaa qaadanayso tu ka fudud waad raadsan kartaa yaa waxyaabaha qofka enerjiga ka nuugana waxa weeyaan fikirka faraha badan leh iyo mar walba raaligelinta bini aadamka ood ku jirtid bilow maad qalada waxaan bilow sidii lagaa rabay maad u samaysay bilow maa lagugu soo celinayaa hawshanaad dhammaystirtay yacni hawlo way iska badan yihiin nolosha dhabtaana de waa wada aragteen qof looga sheekayn kara ma jiro iminka oonan waxba kala fahmayn laakiin idinka waxaa laydinka baahan yahay inaad garatid naftaada waqtigay daalan tahay inaad xaqiga siisid oodna siisid ilaahumay mondayna ahaato ama halfday ahaato waqtigaad ugu tala gashid inaad fasax qaadatidna fasaxiga aad ka faa'iidaysatid oona shaqo isdaba wadin oo guriga kuu raacin yaa maskaxdani 2 shay iyo 3 shay way qaadi kartaa laakiin hal ku afaraad kuma dari karto waan wada rabnaa inaan nolol fiican aan gaarno waan rabnaa inaan wax walba qabsano waan rabnaa inaan yacni qeyrkeen aanan ka hooseyn oo wax waliba aan qaban karno laakiin haddana meesha waxaa taalla adigoo maanta dhan sidaa u duulaya oo dadaalay oo shaqaynaya caafimaadkaaga ku waaya caafimaadkaaga haddaad weydidna lacagtaad shaqaynaysa waxaad gelinaysaa caafimaad waxaad shaqaysa haddana dib caafimaadkaad u gelina markaas dhakhtar dawo wareegi haddana dhakhtarkan kala teg haddana kii kala teg kharashkii aad shaqaysayna wuxuu kaaga baxay maxay hayday halkaas waxaa jirta oday weynan isla shaqayna ayaan maalin weydiiyey oo caddaana isagana waxaan ku yidhi waa da'diisu waxa weeyaan iminka 67 yuu galay haa waxaan ku idhi waxaad ii sheegtaa noloshaada intaad soo noolayd waxa kaliya ed ii sheegay aad isleedahay yacni aad ka maxaa la dhahday aad ka tadamur samaysid yacni aad ka regret samaysay wallaahi wuxuu igu yidhi odaygaasi waxaan yacni aan ka regret gareeyay buu yidhi inaan mar waliba aan dad raalli geliyo ama aan nolosheeda si aan rabay aan usoo qaadan waayo oon mas-uuliyado aan isa saaray yacni halkaa waxaa iga muuqatay inuu odaygaasi uu yacni noloshoo dhan serious baan u qaatay buu yidhi haa serious baan u qaatay hadalka serious baan imika iska ciyaaraa odaygaasi oo wuu daasaa wuu iska hadlaa wuu la kaftamaa cid kasta ama madow ahaw ama qof xijaab xidhno ahaw markaan saa u eego ayuu igu idhaahdaa haa noloshaydii saa serious ugu jira buu yidhi ayaan soo dhammaatay buu yidhi imika halkaasan ayaan ka fikiraa buu yidhi waxaan kula talin lahaa buu yidhi dadka dhalinyarta ah inay wax walbana serious ayna u qaadan yaa
waa la gaboobayaa, waa runtii cimrigu wuu dhammaanayaa, laakiin caafimaadkaaga waa muhiim. qofna lama raali gelin karo bani aadamka. haddaad tirahdid bani aadam baan raali gelinayaana adiga isdhibaya. maxay haddaad tirahdid sida mashiinkan u shaqaynayaayo oo dee qof baan u shaqaynayaana waa taw yadna ugu sii daranba cabsiunbaad ku jira saacadan bada egaysaa. yaa bani aadamkuna dee isku wada mid maahino, laakiin enerjigaaga waa muhiim inaad kaydsatid, xaqaagana aad naftaada siisid xaqeeda. haddii kale saan idii sheegayba waa inaad naftaada aad kor usoo qaadid, caafimaadkeega, bogsashadeeda. yaa wax walbana wuxuu ka bilaabmaa maskaxduna ku dhammaadaa. waa taladayda anigu ayd isiin lahaa. maskaxdaada dad ilaashan weydid cidna kuuma ilaalinayso. oyooyinow, gabdhow, dumarow, waxaa dhalinyarta waxaa jira walaa qaar badanoo iska dulman iyaga laftirkooga oon garanaynba maanta waa daasheenna soo fadhiiso. yaa qaarna waxaa lagu kari laayayba shaqaysta, kacoo baxo shaqaysta oo dee nolol maalmeedkiina soo rita. marka bogsashadu aan ka hadlayo waa emotional exhaustationka qofka ku dhaca, shucuurtan daalaysa nafsiyan. waana xanuunada ugu badan ee ku dhaca sheeg muxuu ahaa bani aadamka. xanuunada ugu badan ee ku dhaca weeyaan. waxayna u baahan tahay dadaal fara badan iyo taxadir fara badan ayaa inuu qofku yaqaano xuduudiisa, xaqeeda, waqtiga ay nasan lahayd, waqtiga ay maxay ahayd isdaweyn lahayd, ka bogsan lahayd. waxaan oo dhan waliba oo maxay ahaydey culays kuga hayo ood arkaysidna iska sii daha kusii dheganaan. waxay ka mid tahay inaad aad daweysid shucuurtaada ayay ka mid tahay. haddii aad daashidna dalbo caawimaad, qofka kuugu dhow ka dalbo. waxaad tirahdaa waan seexanaya ama waan daalan yahay maanta iga yar qabo muxuu ahaa caruurtayda. waxa ugu weyne laga walwalayna dee waalidku waa ilmahaaga haddiina jirin cid aad ku aaminaysid. yacni waxaad samayn kartaa intaad dee waddankeeni hablaa la helay, laakiin halkan oo kale waxaa jira dumar aad maalintaa aad lacag siinayso guriga kula joogayso dee ilmahaaga aad ku haynaysa. waa haddii aanad qof haysan. laakiin haddii family uu jiro ama qofaad ku kalsoon tahay dee wuu ku iman karaayo wuu kaa reebi karaa intaa rad nasanaysa maa seexanaysid ilmahaaga. yacni ceeb maaha qofku inuu dalbado xitaa caawimaad oo yidhaahdo waan daanahayga qabta ilmaha. yaa ku xidhnowna mar walba maxay ahayd dadka wax kugu soo kordhinaya ama wax kula qaban kara waa inaad ku xidhnaatid. waxayna ka mid tahay emotional maxay ahaydeen healingka ayay ka mid tahay. dad kula hadhay haddaad mar walba la socotid dee adiguna waxaad ahaanaysaa yacni qof aan tallaabo qaadi karin, daalkuna kaama ba'ayo. waxaad noqonaysaa qof keligii isagoo haddana qof haysta wax la qabta, haddana qofkaasi aanan waxba la qabanin isagoo culayskii oo dhan kusoo wada janjeersamayo. looma baahna taasina. waa inaad ku xidhnaatid dad yacni noloshaada bogsiinteeda wax ka qayb qaadan kara oo kor kuu soo qaadi kara iyaga laftirkooga. mar walbana naftaada u jilicsanow, u dabacsanow, oo xaqeeda sii. yaa waxayna ka mid tahay bogsashada shucuurta qofka bini aadamka ah. haddii aad naftaada aanad u naxariisanayn oodan u dabacsanaanayna waxba kama qaban kartid. oo tirahdid adduunkan eryanaya sida muxuu ahaa tartanka oo kale. yaa wax walbana waxaa jira si qaab loo qabto iyo qaab aan loo qaban. haddaad dareentid wax inuu yacni culays kuga hayo waad sii dayn kartaa. looma baahna inaad kusii dheganaatid. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa maxay ahaydey haddii aad tahay qof shucuurtiisa ay daalan tahay waxaad ogaataa mar walibana inaad keliga ahayn, inaanad ahayn qof guul daraystay, inaad tahay maxaad qof bani aadam ah oo nool oo tahay. yaa heelinkuna wuxuu ka bilaabmaa caafimaadka ama bogsiintaadana waxay ka bilaabmaysaa laxdada ama momentka aad istiraahdid yaa naftaydan dooranaya mar labaad. naftayda ayaan dooranaya mar labaad. markaas ayay ka bilaabanaysaa inaad naftaada bogsiisada wax u qabatid. nin iyo naagba ma kala reebayo. way jiraan maxay ahaydey waxayna waa lagu kala badan yahay. hooyooyinka ayaana ugu liita oo iyagu wallaahi been ma sheegaya maalinta aad noqotid hooyo ilmaha ku sugaya, naftaadi baa ku sugaysa, guri baa ku sugaya, beel baa ku sugaya, wax walbaa ku sugaya.
يا وين النقطة معلن وين النقطة دكتور وين النقطة محيد نيرسين وين النقطة يعني hage waynaad noqotid yani waxyaabo badan baa sugaya hooyooyinka waxaan anu mar walba aan hooyo u yiraahdaa waa macalinka dhan ama humanka ilmaha bani aadamka soo saaraya ee barbaarinaya waa hooyadana hadayna caafimaad qabin nafteedana waxba ma qaban karto ilmaheegana waxba ma qaban karto waxyaabaha aan mar walbana uga hadlaa anigu dumarku uga nugul yihiin ragga ya iyadoo dibadda kasoo shaqaynaysa dana gudaha ka shaqaynaysaa gudaha marka ka shaqaysan waxa u sii dheer mas'uuliyadii ilmahana inta badan waa hooyada wuxuu ku xiran yahay oo iyadu eeganaya hadad ilmahaaga tarbiyadeynaysid hadana tarbiyadeynayba adigu ku eeganaya ilmahan hadad noloshiisa aad wax ka bedelisid hagaajinaysidna adigu kugu xiran yahay ya boqolkiiba maxay had 9 ilmuhu waa hooyadii buu ku xiran yahay marka naftaada aad had bogsiisid aad wax u qabatid ilmahaaga wax u qaban kartaa laakiin naf daalan oo iyadiiba xaqeedii garanayn oo waxbana u qaban karayn ilmo waxba uma qaban kartid sababtaas ay mar walba aan uga hadlaa dumarka maxay u dhiirigeliyaa oo dumarka ugu soo gudbiyaa maxay waxyaabaha naftooda ay ka bedeli karaan ama ka caawin karaan cidii maskax furan ee fahmaysa ama qaadanaysa aanu mawduucyada aan kasoo jeediyo topic channel-kaygan aad iyo aad buu mahadsan yihiin aad ban maxay ugu mahad celinayaa oo waan jecelahay dumarku inay wax fahmaan wax bartaan ay aqligooga ay furaan ay maskaxdooda wax badan ay gasho ay ilbaxaan waa kaas marka inaga yara malka ku ciyaaray isaguna tagay waa kaas saasan ku gabagabay maanta topicii maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad ii rajaynaya khayr fara badan hana iloobina mar walbana channelkayga subscribe dhaha share dhaha سينا شير قرايا كومن في عني قتاga aad iyo aad baad u mahadsantihiin maca salaama duhur wanaagsan khayr badan bay idin rajaynaya dawaydinkaas bye bye anay soo duceeya maca salaama